Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa khiyaarteena aad jecelnahay meel walbood joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaan. Ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha leh ee sportiska ayadoo bartanka aan kaga jirno tartanka qaramada qaaradda Yurub oo meel xiisa la marayo ayaa waxaa la gaaray wareega 16 ayadoo kooxdii laga badiyo oo nag out yahay ay daaqada ka sii baxayso. Haddaba caawa ay tahay Sabti ahayd taariikhduna ay tahay June 26 maalin Sabtiya waxaa tartankan daaqada ka tuuri doona laba wadan halka aan ka reebi doono laba wadan. Labadaas wadan oo sugi doono berri oo axad ah labadii wadan ee aan soo qaadano labadii aan tuurnane ay raaci doonaan wadamadii aan hore u tuurnay. Haddaba yaan caawa tuurnay yaan caawa soo bixinay. Waxaa fiidkii hore ee caawa 1 saac oo habeenimo markay ahayd saacada geeska Afrika waxaa wada ciyaaray wadamada Wales iyo Denmark taas oo la xasuuqay wadanka Wales 4 gool oo aan jawaab lahayn. Sidaas darteed waxaan soo qaadanay wadanka Denmark waxaana daaqada ka tuurnay wadanka Wales. hase yeeshee 4 saac oo habeenimo saacada geeska Afrika markay ahayd waxaa soo galay laba wadan oo kala ahaa Talyaaniga iyo Austria. Haddaba Austria iyo Talyaaniga yaa soo baxay. Waxaa soo baxday wadanka Talyaaniga kadib ciyaar la ismari waayay oo la isku xiiqay 90 daqiiqo ku soo dhamaaday eber iyo eber ayaa waxaa lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah. 30kaas daqiiqo ee dheeri ahaydna waxaa 2 gool iyo 1 ku badiyay wadanka Talyaaniga. Sidaas darteed caawa oo Sabti ah taariikhdu tahay June 26 waxaa daaqada ka baxay Wales iyo Denmark. Wales iyo Austria waxaana u soo gudbay wareega 8 wadamada Talyaaniga iyo wadanka Denmark ayadoo berri oo axad ahna la wada ciyaari doono 4 kooxood ay dheeli doonaan. 2 ayaa ka soo bixi doonto 2na waa ay hari doontaa oo waxay raaci doontaa Wales iyo Austria ayay kala raaci doonaan. hase yeeshee ciyaartii caawa oo xiiso gooniya lahayd ayaa waxaa Talyaaniga iyo haddaan ka sheekayno iyo Austria waxay ciyaartu qaybtii hore lagu kala baxay eber iyo eber inkastoo fursado badan ay isku heleen labada dhinac ayadoo u dhawaatay Australia in ay gool ka dhaliyaan daqiiqadii 26aad kadib markii ciyaaryahan Arnaldo Figo gool uu difaacyada meel iska saaray uu si dirqiya kaga qabtay boortiyeriga Talyaaniga. hase yeeshee isla daqiiqad kadib waxaa birta garaacay boortaha ciyaaryahanka 11 u wada wadanka Talyaaniga ee Imboli kaasoo birta darbad awood lahayd oo boortaha banaanka joogay uu ka dulqaaday ee birta ku dhacday. hase yeeshee qaybtii dambe ee la isku soo noqday ciyaarta ayaa waxba ka bedelmin ilaa laga gaaray ciyaarta in seeriga la yeeriyo dibna la iskugu soo noqdo ayadoo lagu daray ciyaarta 30 daqiiqadood. 30kii daqiiqo ee lagu daray ayuu Talyaaniga waxa uu helay 2 gool. ciyaarta oo 1 daqiiqo ka dhiman waxaa gool rajo celisa ama goolka calanka dhashtay wadanka Austria. hase yeeshee kuma uusan filnaanin inuu ka badbaadiyo guul daradii ama uu ku sii hayo tartanka. sidaas darteed waxaa wadanka Austria lagu reebay 2-1 ayadoo Talyaanigana uu u gudbay wareega 8aad asigoo halkaas kula sii midoobay wadanka Denmark oo saacada ka hor ka soo guuleystay Wales una gudbay wareega 8. haddaba waxaan eegi doonaa 4 kooxood oo habeen dambe wada ciyaari doona.